بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الزلزلة. سورة الزلزلة بالليلة aayadaheeduna waa 8 aayadood, waxayna ka mid tahay suuradaha ku soo degay Makka. waxay tilmaan aad u xeel dheer ka bixin doontaa maalinta qiyaame iyo adduunyadu sida ay isu bedeli doonto, ee iimaanka iyo quluubta bini'aadmiga u wareerin doonto, ee axad waliba dhabannada iyo ay isa saari doonaan shanta dhaban iyo dhafoorka, oo nin waliba uu leeyahay sidani maxay tahay, isbeddelka sidani muxuu yahay, aad loo amakaagi doono ayuu ilaahay ka warramaya. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi idaa goorta zulzilad la lulo ee la ruxo, alardu marka dhulka la ruxo, zilzaalaha ruxitaankii loo qorsheeyey. sidanuun adduunyadu habadka iyo hayinka u ahaan mayso, sidanuun ugu daaqi maysaan oo ilaahay ugu dulcaasin maysaan. waxaa lala maagan yahay maalin uun in ilaahay dhulka gariiriyo dhammaantiiba. idaa goorta zulsilad la ruxo, alardu dhulka marka la ruxo oo la goolaabo, zilsaalaha ruxitaanka iyo goolaabkeeda marka la sameeyo. wa akhrajat marka la goolaabo waxay soo saari doontaa, alardu dhulku wuxuu soo saarayaa afqaalaha wixii culays ay qarinaysay oo dhan bay bannaanka u soo saari doontaa. haddii bakhti ku jiray way soo saariyo oo nool, hadday maxaanku idhaha dahab iyo dheeman iyo fido wixii macdan ku jiray oo dhanna bannaankay u soo xoori doontaa. markay wax allaaliya wixii gudaheeda ku jiray ay soo ballaqdo goortaa, wa qaala dabeedna uu yidhaahdo al-insaanu bini'aadmigu ay yidhaahdaan, maa ayu shay-in maxay baa laha adduunyadii iyo dhulkii maanta waa maxay, maxaa u sugnaaday, armaanta adduunyadii waxaanay samaynaysaa waa maxay baa la odhan doonaa. yowma-idin maalinta yaabkaa leh, tuxadiثu waxay ka warrami doontaa arladu akhbaaraha wixii war ku duubnaay oo dhan ayay sheegi doontaa. wax allaaliya wixii arladan dusheeda lagu sameeyey ayay ka warrami doontaa, saacad daqiiqad camal shar iyo khayr ayadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadashiin doonaa. qof walba khayr iyo shar wuxuu arladan guudkeeda ku sameeyey ayay uga warrami doontaa. waa rikoodhina hoos yaalla. adduunyadan aan arkaynaa, halkaa aad ku sujuudday way ka warramaysaa, halkaad ilaahay ku caabudday way kaaga warrami, halkaad ku haasawdana waa kaaga warramaysaa. nin baa beri Hargeysa joogi jirayoo qasaa'id buu tirin jiray. wuxuu odhan jiray, kuwaa dhacaya isla dhumanayo dhulkuba waydin sheegi doonaa qor, calayka allaahu sallama yaa muxamed ibnu cabdillaah. ayaa ku jirtay maxaanku dha qasaa'idkiisa. kuwaa dhacaya isla dhumanayo dhulkuba waydin sheegi doonaa. markaa dhulkanaa warrami doona. moobilkan soo ma aragtaan, masamaduu ka soo degey, dhulkunbaa laga soo saaray aaladahan iminkayna duubaya ee wax walba ka warhaya. tanubaa ilaahay isku rakibaya. bayteriga dhulkaa laga soo saaray, jibkan yar dhulkaa laga soo saaray, qalabkan yaroo dhan dhulkaa laga soo saaray. bini'aadmi baa sameeyey, fa kayfa saanic. allihii sameeyey umkana ka warrama. maxaa u malaynaysaa? si wuxuu la yaab leh ayuu uga warramay. iminka haddii maalan masaajidkan la bakhtiyo leydhkiisa oo aan telefoonkan ku hadlo ay madow tahay, shirkadda wuu u sheegaya inta daqiiqan hadlaya soo maaha. meel madow ah haddana sabadaan ku hadlaya. iftiin uma baahna, laydh uma baahna moobilkani. bini'aadmi baana sameeyey. markuu ilaahay damco inuu ku daba dhigto, ilaahay kuma cuslo tabaaraka wa tacaala. yowma-idin maalinta qiyaamuhu oogsado, tuxadiثu way ka sheekayn dhulku akhbaaraha waxay shaqahay yacnii war haysay oo dhan. maxaa sababa? bianna rabbaka, sababtuna waxay tahay rabbigaagaa awxaa amray lahaa iyada. dhul yahow warran wixii aad duubtay sheeg baa la odhan doonaa. yowma-idin maalinta yasduru nnaasu dadku way fulayaan oo way soo dareerayaan ashtaatan iyagoo jamaac koox
السدور وأمرك مثلا عيلك اللي قسوا حولها لصو ورابيه سو فلان أف عربي السدور أي الله يرهضا مرك أي هرادين هنا يسي أروريان ورود بالله يرهضا فأوردهم النار وبئس الورد المورود مرك camalkii adduunka waan dhammaynay wixii aynu kasbanoo dhan waan shaqaysanay hadda waa la soo fulay xaggii aakhiriya abaalmarintii waxa camalkeennii waxaynu kasbanoo dhan waan shaqaysanay ashtaatan ay firaqan wa jamaacaatin dadka oo koox kooxa ayaa soo bixi doona intii shimbirba shimbirkiisu la duuli doona intii ku calaamadsanayd zinada ahla zina dhanba isu raaci doonaan intii qaatilu nafsiga xaq darrada wax ku diltay dhinac bay isu raaci doonaan shawaaribul khamri dhinac bay isu raaci doonaan kuwii habeenkii salaatuleylka u kici jiray dhinac bay isu raaci doonaan kuwii soomka badnaa waxaa laga dhigayaa guuto gaar ah jamaacaad bay dadku isu soo raaci doonaan baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala maxaa loo wadaayee loo soo fuliyey maxaa loo soo dareeriyey liyuraw inay arkaan darteed acmaalahum nin waliba wuxuu tabcaday ayaa la tusi doonaa haddaba faman yacmal ninkii tabcaday midqaala daratin atam in la eg oo culays ah ninkii shaqaystay oo shayga ugu yar adduunyada culayskiisa in la eg oo khayra ninkii shaqaystay yarahu uu arki doona waman yacmal ninkii kasbaday midqaala daratin atam in la eg ama shay dhuuri casa ah in la eg oo culays ah oo shaqaystay sharan shar ah yarahu uu arki doona suuratu lbayina suuraddan suuratu lbayina la yidhaahdaa waa burhaan iyo caddayn bay ka wadaa suuratu lbayina aayadaheedu waa 8 aayadood waxayna ka mid tahay suuradaha madaniga ah weeyaan suuraddani suuratu lbayina waa madani weeye suuratu lbayina 3 masalay daahfuri doontaa waxay marka hore ka warrami doontaa markay diinta islaamku timi dad badan inay intifaacsadeen oo markii hore mugdi iyo dalaal ku jiray oo ama diin qaldan nasaaradii iyo yahuuddii iyo nimankii mushrikiinta ahaa in badanoo ka midihi inay ka fuqeen baatilkii iyo maxaanku idhaahdaa shirkigii mar labaad waxay suuraddu tilmaamaysaa ikhlaaska waxa la yidhaahdo oo aasaaska diinta ah ama camalkaaga waxa gundhiga u noqonaya way ka warrami doontaa waxa kale ka warrami doontaa labada qoys ee adduunyadan ku nool ahlu sharki iyo ahlu khayrka iyo halkay ku intihoon doonaan 3 masalo ayay suuraddu tilmaamaysaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi lam yakun muu ahaanin aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo min ahlilkitaabi aan ku caddaynaya ahlu kitaabka kuwii kutubta hore haystay oo yahuud iyo nasaariihi qaar ka midii may noqon iyo walmushrikiina iyo kuwii maxaanku idha asnaamta caabudaya labadaa qoysba may noqonin munfakiina kuwa ka fuqa baatilkii iyo macaasidii iyo shirkigii iyo gaalnimadii kamay hadhin xataa ta'tiyahum ilaa ay uga timi albayinatu markay burhaantii iyo caddayntii u timid bay ka hadheenoo ka joogsadeenoo xaqii bay raaceen burhaantan iyo bayinada maxaa looga jeedaa wuxuu yidhi ilaahay lam yakun muu ahaanin aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ahaa maxay ku gaaloobeen yahuudi waxay tidhi cusayr baa ina ilaahay ah waxa kalooy ku gaaloobeen nebi ciise ayay dafireenoo yidhaaheen rasuul ilaahayba ma ahan nasaarana way kufridayoo nebi ciise yidhaahdeen waa ina ilaahay labaduba gaalay noqdeen haddana diin bay sheeganayeen markii uu bayinadii iyo xaqu yimi in badan baa caqiidadii sidaa ahayd ka fuqday mushrikiintuna gaalay ahaayeen maxay gaalo ku ahaayeen sanan bay caabudayeen in badanoo mushrikiintii ka mida markay bayinadii iyo deliilkii yimi xaqii cadda way ka fuqeen shirkigii iyo gaalnimadii haddaba bayinadan timid wa'ayo rasuulun rasuul markuu yimi min allaahi xagga ilaahay laga soo diray rasuulkaasoo yatlu aqriyaya suxufan wuxuu akhriyaya suxuf iyo waraaqu akhriyaya mutahharatan la daahir yeelay oo been iyo fasahaad iyo xumaan aan lagu arki karin oo daahir ka ah ayuu ku dul aqriyey
isagoo qalbiga ilaahay kaga daabacay suxufta qalbigiisa ilaahay saxaayif ka dhigay qalbigiisa diiwaankii quraanku ku qora kaasuu ka aqriyay nebigu quraanka dadka uu aqriyay fiiha suxufta oo qalbiga ka yeedhinayo fiiha dhaxdeeda waxa ku qora kutubun waajibaat qayimatun qumman waajib sax ah oo qumman oo la intifaacsado ayaa ku qora wama tafarraqa may kala dhaqaaqin oo ismay khilaafin alladina kuwi uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka hore kuwii haystay ismay khilaafin ilaa marka la soo gaadho min bacdi kadib maa muddadii jaa'athum ay u timid albayinatu maalintii bayinada u timi ayaa gaala kala dhaqaaqday oo mushrikiintii kala dhaqaaqeen oo ina rasuulka raacday ina ay gaalnimadoodii ku sii adkaysteen wamaa tafarraqa may kala dhaqaaqin oo may iskhilaafin aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum intay uga timid dabadeed mooyaane albayinatu caddayntii iyo burhaantii alliya rasuulku markuu u yimi ayay kala dhaqaaqeen xasadan min cindi anfusihim waxay ahayd xaqa inay ku midoobaan qaar baa xaasidnimo ma annagaa carabi nebi noo noqota oo qurayshina ay tiraa ma annagaa nin agoonahoo miskiinoo faqiirihi uu nebi noo noqdaa ma diinta lagu soo dejiyo ragga waaweyn ee hebellada ahee la yaqaano ayay qaarkoodna ku fitnoobeen dadkani maxay ka dideen mushrikiintan gaalnimada ku adkaysatay maxay biyo diideen gaaladan kutubta hore haysatay ee kutubtooda ka sii warantay nebi moxamed maxay iyaguna ka firdhadeen maxaa la farayey waxaan khayr ahayn lama faray wamaa umiruu lama amraynin dadka ilaa mooyaane liyacbudullaaha inay alla caabudaan xaal mukhlisiina ay u gaar yeelayaan lahu ay lilaahi alle inay u gaar yeelaan unbaa laga rabay addiina ay ilcibaadata wax kale oo dadkan lalahaa sameeya may jirin ilaahay caabudo oo cid kale ha la caabudina u khaas yeela rabbi cibaadada iyo baryada iyo gowraca iyo maxaanku idhaahdaa ilaahay u gaar yeela unbaa lalahaa wamaa umiruu lama amraynin khalqiga ilaa mooyaane liyacbudullaaha inay ilaahay caabudaan unbay ahayd ujeeddada hadalku xaal mukhlisiina ay u gaar yeelayaan lahu ilaahay addiina cibaadada xunafaa'a waxaa lalahaa ka leexda diinta qaldan xunafaa'a xaalaatiin kuwii ka baydhaya diimaha qaldan taasunbaa la farayey wayuqiimuu inay oogaan baa la farayey asalaata salaada ilaahay iyo addoonka isku xidha adkaystun baa lalahaa oo yani ooga wayu'tuu inay bixiyaan unbaa la farayey azakaata dagada inay bixiyaan unbaa laga rabay maalka ilaahay xaq ku yeeshay ee masaakiinta loo waajib yeelee dagada la yidhaahdo iska bixiyayey maalka kale idinka sadhaynin intaasunbaa lalahaa wadaalika arrimahan la amrayeyna diinu اlqayim waa diinta quman baa sidaas ina aladiina kafaruu haddaba kuwa gaaloobay ee diintaa quman diiday oo min ahlilkitaabi kitaabka hore haysan jiray wاlmushrikiina iyo mushrikiinta asnaamtii ku sii adkaystay labadaa reerba fii naari jahannama naarta jahannamo dhexdeeday ku sugnaan khaalidiina fiiha weliba way ku waari doonaan ulaa'ika kuwaasi hum iyagu sharu lbariyati sharu lkhalaa'iqi albariyatu alkhalaa'iq inta ilaahay uumay ee makhluuqaadka waxa ugu shar badan nin ilaahay ku caasiyo ilaahay ku shirki yeelay haddaad lagu yidhaahdo uunka ilaahay abuuray yaa ugu shar badan nin ilaahay dafiray baa ugu shar badan sharulbariyati makhluuqaadka inta ugu shar badani waa gaal ilaahay ka kufriyey ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey wacamiluu saalixaati camal wanaagsanna la yimid ulaa'ika kuwaasi hum iyagu khayrulbariyati makhluuqaadka iyagaa ugu sito ugu khayr badan jazaa'uhum abaalmarintooduna cinda rabbihim ilaahay agtiisay u taallaa jannaatu cadnin aan idiin sii weliba caddeeyo oon si kale idinku dhige abaalka aan ugu haynaabaa ilaahay jannaatu cadnin waa jannooyin aan weligoodba guuraynin jannooyin maguuraan ah ayay heli doonaan tajri ay qulqulayso min taxtiha alanhaaru hoosteeda webiyaalbaa mulacyayn doona khaalidiina fiiha way ku waari abidkeed radia allaahu canhum ninka ilaahay rumeeye camal fiican la yimi radia allaahu canhum kuwaa ilaahay raalli buu ka yahay
waraduu canhu iyaguna rabbi raalli bay ka noqdeen abaalmarinta uu guddoonsiiyey aad bay uga mabsuudeen daalika arrinka caynkaasa oo in ilaahay kaa raalli noqdaa adna aad ilaahay ka raalli noqotaa oo jannaati cadni lagu guddoonsiiye ah khayru waxa weeyaan liman khashiya rabbah liman waxa iskale ruux khashiya ka cabsaday rabbahu rabbigii ka cabsaday suuratu lqadar suuraddan suuratu lqadar baa la yidhaha waa shay la qiimeeyey bay tilmaamaysaa wax qiimo badan leh ayay tilmaamaysaa waxayna ka mid tahay suuradaha maka ku soo degey waana 5 aayadood markii cimriga ummadda muslimkii uu yaraaday ee 60 ilaa 70 intooda badan uu dhaafi waayey ummadihii horena ay kun sano iyo dheeraad noolaan jireen arrinkaas waxaa aad uga ashkatooday nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam allahayow aakhirana waa la tartamaya falyatanaafis ilmutanaafisuun baad ilaahow tidhi allahayow ummaddaydii cimrigeedii way gaaban tahay ummadihii horena cumrigeedu wuu dheeraa nin 1,000 sannadood ku caabudayay iyo nin 80 sano ku caabudayey isma gaadhi karaan allahayow sideen yaalaa ilan hadhowna waa la isu faanaya aakhiro ambiyaduna xataa way maxaanku dhahda way tartamayaan codsigaa uu nebiyullaahi moxamed ilaahay hortii uu inoo sameeyey baa rabbigeen wuxuu ina siiyey fii kulli sana sanadkii walba hal habeen buu inoogu daray halkaa habeen oo 1,000 bilood ka khayr badan waa habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo ee sha'nigiiyo arrinkiisu wen yahay waana bisha ramadaan dhexdeeduu ku jira 10ka ugu dambeeyaa loo fila maalmaha isdheer 10ka u dambeeyaa weliba loo sii fila qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annagu anzalnaa waxaan soo dejinnay hu oo qur'aanka ah qur'aankan maanta aynu akhriyaynan ku doogsanayna qalbigeennu wuxuu soo degay fii leylati alqadri habeen sha'ni weyn leh habeen qiimo badan leh ayuu soo degey wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa leylatu lqadri wuxuu yahay habeenka qadarka iyo sha'niga lihi leylatulqadri habeenka leylatulqadriga laydhaha ilaahay sha'niga iyo qiimaha siiye khayrun wuxuu ka sitaa oo ka khayr badan yahay min 1000 shahrin 1,000 bilood ayuu ka khayr badan yahay tanazalu lmalaa'ikatu habeenkaa malaa'igahaa soo dega malaa'ig baas dhulka u soo daadegta waruuxu ruuxuna wuu soo degaa ruuxa maanta waxaa laga wadaa waa malakuljibriil malaa'igta iyo boqorkeeduba wuu soo degaayo malakuljibriil baa malaa'igaha oo dhan yacni boqor ah way soo degaan fiiha fii haadihi alleyla habeenkaa dhexdiisay soo degaan biidni rabbihim amar eebbe ayay ku soo degaan biidni rabbihim min kulli amrin amar dhammaantiina way la soo degaan oo sanadkaa soo socda wixii acmaal dhici lahayd oo dhanna way loo qaybiyaa malaa'igta kii arsaaqda ilaahay uu u igmaday sanadkaa wixii dhalan doona wixii dhiman doona nin walbaba arsaaqdiisu intay ku intihoon doonto malakulmowdna waa la guddoonsiinayaa sanadkaa gudihiisa inta nafoode uu qabanayo malag walbaaba wuxuu isagu qaabilsan yahay sanadkaasaa loo jumladayaa oo la odhanayaa wakaa sanadkaa intaasaad sidaa u wadaysa oo sanad xidhkaa ayaa loo soo dhiibayaa malaa'igta ay khusayso acmaashaasi tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtaa soo degaysa waruuxu iyo malakuljibriil baa fiihaa maalintaa habeenkaa dhexdeeda soo degi biidni rabbihim amar ilaahay bay ku soo degayaan min kulli amrin amar kasta oo ilaahay damacsan yahay sanadkaa gudihiisana waa la guddoonsiinayaa salaamun hiya habeenkaasi salaamun waa habeen nabadgelyo waa habeen salaam iyo maxaanku dhaha bogaadin leh oo maa habeenka meelaha lagu cibaadaysanaya mu'miniintu ay ku shamirayaan cibaadada rabbi ayay dhex wareegayaan markaasay odhanayaan salaamun calaykum bay odhanayaan hiya leyladaasi iyo habeenkaasi salaamun waa habeen nabadgelyo xataa maطlaci اlfajri nabadgelyadaasaa lala dhex wareegayaa muslimiinta xataa ilaa oo maطlaci اlfajri ay cadceeddu ka soo baxayso ilaa waaga berigiisa gabalku markuu dhaco ma habeenkaas ilaa inta cadceeddu ka soo baxaysa salaada subax loo aadimayo intaasaa malaa'igtu dhex wareegaysa suuratu اlcalaq suuraddan suuratu اlcalaq baa la yidhaahdaa waxay ka mid waa suuradaha maka ku soo degey aayadaheeduna 19 aaya waa 19 aayadood 3 masalo ayay 3 xubnood baynu u qaybin doonaa qaybta hore waa 5 aayadood ee ugu horeeya suuradda waxayna tilmaamayaan
oo la yiraahdo waa shantii aayadood ee ugu horeeyay quraan soo dega nabigeenno calayhi salaatu wasalaam godkii qaaru xiro ku jira oo malakul jibriil u yimi waa shantii aayadood ee uu ku bilaabay quraankaba masalada labaad ee suuradu ka hadlaysana waxa weeye insaanku sidiisaba nicmada iyo sadada ma xajiyo had iyo jeer hadaad u fiirsatana dadka kibirsan waa dadka ladan weeye inta badan dadka ilaahay uu ladnaysiiyey ee uu sadbadiyey kuwaas ugu qooq badan masalada saddexaadna waxa weeyaan ninkii la oran jiray abaajahal iyo dagaalku diinta la galay iyo nabi ilaahi muhammad qaala allah tabaaraka wa taala ilaahay wuxuu yiri iqra ya rasuul allah ya muhammad akhri nabi muhammadu bismi rabbika rabbigaaga magaciisa adigoo ku bilaabaya magaca rabbiga adoo ku bilaabaya akhri markaasaa nabigu yiri wax la ima barin ummi baan ahay markaan anigu uurka hooyaday ka soo dhacay ilaa maantoon 40 jir ahay waligay wax la ima dhigin 3 jeer buu markaa camaajuleeyay oo dabadeedna markii dambe uu yiri maada aqra maxaan aqriya goortaasuu ku yiri iqra aqri nabi muhammadu bismi rabbika magaca rabbiga adigoo ku bilaabaya alladii allihi magaciisa cusko oo akhri khalaqa uunka oo dhan allaha abuuray خلق الله أبو رسي قارا الإنسان ضدك من علق علقو إلها كأبو ري علقو وحوية ما دد يرون رحمك هو يدا كدكته أو سدا أصول الله تصنته أو يآد سشبهان دحرير أو على علا يراهضو ومالها بيا مرينا ذا أيو إلها بيها أي هذه يشير فريستايو وحوية ودحرير مدو وأفيرو بلارن له oo had iyo jeer xoolaha markay biyaha cabayaan bay u raacdaayo cunaha iyo intaasay iska laalaadisa markaasay dhiigga ka nuugtaa waxa weeyaan marka dixiriyar baad noqotaan oo sida calaacusha markaasuu riximka hooyada ku dhaga halkaasuu dhiigga ka nuuga heerkaasaad soo marteen calaqa idinka oo calaacul iyo dixiriga calaacusha la yiraahdo shabihiisa oo kala leh halka caawa inoogu jooga